markale ismaqal wanaagsan aqeyrta hawda nagala xiriiday ku soo dhawaada warkii oo dhan waxaana xilliga idin waramaya anigoo ah Cabdicasiis okay aan ku bilaabay dalka Kenya waxaa mar labaad dib loo dhigay doorashada laba ka mid ah ismaamulka Kenya warbixinta warka waxa inoo soo diray wariyaheena magaalada Nairobi Saciid Qarafan guddiga doorashooyinka Kenya ayaa maanta qabanaya doorashada ismaamulada Mombasa iyo Kakamega oo doorashadooda dib loo dhigay kadib markii xilliga la helay qaladaad ku jiray waraaqaha codadka lagu dhiibanayay taasi oo keentay in dib loo dhigo waxaana hore loogu asteeyay in la qabto 23 bishan aan ku jirnay Agoosto balse dib u dhac kale ayaa ku yimid mar kale deegaan doorashooyinka Ronga iyo Koonfurta Bakood ayaa iyana saaka loo dareeray goobaha codadka laga ridanayo oo iyagana cilad dhacday maalintii doorashada oo dib loogu dhigay magaalada Mombasa ayaa ah halka sida weyn isha loogu wada hayo waxaana la filayaa in saadaal ay ka bixiso awoodda labada xisbi ee doorashada ku loolamay haddii isbahaysiga Raila Odinga looga adkaado ismaamulka Mombasa ayaa waxay niyad jab adag ku noqon doontaa taageerayaashooda maadaama horey looga adkaaday barasaabka caasimadda Nairobi oo uu ku guuleystay Johnson Sakaja oo ku tartamay xisbiga UDA ee uu hogaaminayo William Ruto dhinaca kale Raila Odinga ayaa kol hore sheegay inaanan loo baahnayn inuu korjoogto ka noqdo doorashada maanta la qabanayo gudoomiyaha guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha dalka Wafula Chebukati wuxuuna intaa ku daray inuu istaahilo in xabsiga la dhigo waxaana hadalka ka jawaabay Chebukati oo ku sheegay Raila Odinga nin doonaya in doorashada loogu dhawaaqo sida uu isagu rabo ugu dambeyntii waxaa weli socda dhageysiga dacwadda ay maxkamadda sare geeyeen isbahaysiga Azimio waxaana la filayaa in go'aanka maxkamadda la soo saaro horraanta bisha soo socota ee September Saciid Qarafan Universal TV Nairobi baarlamaanka Galmudug ayaa degmooyinka Baxdo iyo Wasiil si rasmi ah ugu aqoonsaday in ay yihiin degmooyin soo buuxiyay shuruudaha degmanimo Farxaan Axmed ayaa warkaasi Doosamarabi noo soo diray Wasiil iyo Baxdo waa laba magaalo oo ka kala tirsan gobolada Mudug iyo Galgaduud dadka magaalooyinkaas ayaa bilihii ugu dambeeyay waxay wajahayeen dagaalo qaraar oo kaga imaanayay Al-Shabaab culimada magaalooyinkaas oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa iska caabiyay weerarada dhowr jeer ay ku soo qaadeen Al-Shabaab labadaasi magaalo kal hore wasiirada Galmudug ayaa soo jeedin ay sameysay wasaaradda arrimaha gudaha Galmudug ku ansixiyeen degmanimada Wasiil iyo Baxdo kulan ay maanta yeesheen baarlamaanka Galmudug ayaa qaar ka mid ah xildhibaanada ka soo jeeda labadaasi magaalo waxa ay baarlamaanka ka codsadeen in la ansixiyo degmanimada Wasiil iyo Baxdo waqtiyo badan oo la soo maray oo Baxdo iyo meesha la yiraahdo Wasiil degmo la raadinayay laakiin maanta ka hor aynan noqon nasiibkooda aysan ku noqon ayaa soo jiray haddii maanta loo fadhiyo xildhibaanada Galmudug ay u fadhiyaan inay labada degmo ansixiyaan waxa weeye nasiib ay u tahay xildhibaanada sharafta lana aad ay u mahadsan yihiin wax yar hadaan ka taagto degmada Wasiil mudane yaal iyo marwooyin mudane gudoomiye degmada Wasiil waa magaalo taariikhi ah dhacdana deegaan istiraatiiji ah oo isku xira magaalo xeebeedka Hobyo iyo magaalo madaxda gobolka Mudug bartamahan uga taala degmada Xaradheere iyo ay u sinan yihiin iyo maaragtay Afburwaaqo iyo gobolka Mudug magaalo madaxdiisa Gaalkacyo dib soo jeedinta xildhibaanadan ayay baarlamaanku cod aqlabiyad leh waxay ku ansixiyeen degmanimada Wasiil iyo Baxdo waxaana ku dhawaaqay gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug Maxamed Nuur Gacal inta ogol degmeynta degmada Wasiil mudanayaasha baarlamaanka gacanta taagan inta ogol degmada Baxdo in ay noqoto kadib markii naloo soo gudbiyay warbixinteeda inay buuxisay shuruudihii degmanimo ee laga rabay inay degmo noqoto oo loo aqoonsado inta ogol gacanta taagan gudoomiyaha degmada Baxdo ee gobolka Galgaduud ayaa gudoonka iyo xildhibaanada baarlamaanka Galmudug uga mahad celiyay ansixinta degmooyinka labadaasi degmo noo tahay maalin weyn oo taariikhi ah oo meel loogu qoran waxaanu raadinaynay muddo ka badan 50 sano
aan maanta riyaan ku riyo jirnay noo rumowday baxdo iyo wisil waa magaalooyin taariikhi ah waxaa ka soo warramay baarlamaankii ka hadlay meeshaan ay ku matelay golaha baarlamaanka dhexdiisa magaalooyinkaas sidaan dareemayno muddo aad iyo aad u fog bay raminayeen inay noqdaan degmooyin. Farxaan Axmed Cabdi, TV-ga caalamiga ah Universal, Dhuusamareeb. arday ka faa'iidaysatay abka waxbarashada Sam Quiz kaalmaha horena ka galay imtixaanaadka shahaadiga oo ay qaaday dowladda federaalka ayaa ka warbixiyay muhiimadda barnaamijkan casriga uu leeyahay. waryaheena Maxamed Cali Weliye, waryaheena Maxamed Ibrahim Bulbul ayaa warka inoo diyaariyay. waa ab waxbarasho oo lagu soo koobay dhammaan maadooyinka manhajka dowladda ee fasalada shahaadiga ah loogana gol leeyahay inuu ardayga si quman u fahmo leyliyada manhajka isla markaana ay hal abuureen dhalinyaro Soomaaliyeed oo dalka gudihiisa wax ku bartay si ay u horumariyaan waxbarashada waddanka. kooxdan waa arday ka baxday iskuulka Al Anwaar ee Muqdisho waxay ka mid yihiin ardayda kaalmaha hore ka galay imtixaanka dugsiyada sare oo ay dowladdu qaaday sanadkan. guushoodana waxaa sabab u ahaa joogtaynta isticmaalka abkan Sam Quiz. application wuxuu leeyahay qayb lagu magacaabo testing yani waa tijaabo ardayga markuu wax barto wuxuu u baahan yahay meel uu isku tijaabiyo hadduu application-ka Sam Quiz uusan lahaan lahayn testing waxaa aaminsanahay ardayda inay xiisan lahayn laakiin testing wuxuu ardayga ka saacidaya wixii uu soo bartay inuu ardayga isii weydiiyo inuu imtixaan iska qaado tusaale ahaan su'aal baa lagu weydiinaya haddii su'aasha aad garanaysid su'aasha waad ka jawaabaysaa laakiin haddii aadan garanayn waxaa yani ku sahlan inaad dhahdo don't know oo ah ma garanayo su'aasha waa laga gudbin su'aal kale lagu keenay buugta daahanaysan manhajka waxa ka buuxo su'aalo badan oo direct ah waliba su'aalahaas oo tiro badan oo ardaygu isleeyahay qaabkay u jawaabaysaa application wuxuu ka saacidayaa su'aalahaas sida ugu fiican oo sida nuxurkooda loogu jawaab nuxuraysan oo macnaha aragti ku dhisan ugu jawaabi leedahay ka saacidaysa application-kaas oo qaybta flashcard-ka oo su'aasha iyo jawaabteeda is wataan waaye dhammaan jabtarada su'aalaha wixii direct ku imaan karo oo nuxur leh oo marka isleeyahay ku imaan karaan runtii waa ka helaysiin meeshaasi. Xuseen Maxamed waa ardaygii kaalinta labaad ka galay imtixaanka dugsiga sare oo ay sanadkan dowladdu ka qaaday guud ahaan Soomaaliya. waxa uu sharaxayaa doorka uu abkan Sam Quiz uu ka qaatay guushiisa. waxaan isleeyahay guusha maanta aan keenay waa imtixaanka aan ka keenay qayb ugu weyn doorka ugu weyn waxaa ku leh inaan ku soo dadaalay inaan ahay arday xiroow ah kutubada raacdo cilmiga ku dadaalo marka waxaan kula dardaarmaa ardayda in cilmiga lagu dadaalo application-ka Sam Quiz oo ruuxantii aan dhihi karo kaalin weyn uu ka qaatay intii aan form 4-ka aan dhiganayay application-kaas ardayda Soomaaliyeed waxaan kula dardaarmaa waxaa taalo aqoon wuxuu leeyahay 3 qayb learning ah oo su'aalaha indirect-ga ah qayb wuxuu leeyahay flashcard ah oo su'aalaha direct-ga laga jawaabayo iyo qayb test ah oo ardaygu istijaabi karo. dhanka kale maamulaha iskuulka Al Anwaar ayaa ka hadlay muhiimadda uu abkan u leeyahay ardayda iyo sida ay dhankooda ugu faa'iideen. sanadkan waxaa noo suurto gashay in 2 arday ay noo galaan kaalmaha ardaydaas kaalmaha galeen waxa oo aad u kaalmeeyay waa helitaanka ay heleen Sam Quiz ardaydaas inay kaalmo galaan iyada sabab u ahayd ayaan dhihi karnaa waas anaga ardayga markii uu nala joogo iyo markuu naga maqan yahay hadduu xilli walba uu helo macallin kaalmeeyo oo dadaal badan yahay oo dadaalkiisa uu sameynayo waxaa shaki la'aan sidaan oo kale ayana soo baxayso marka anaga markii naloo keenay Sam Quiz ardaydii ay aad u galeen waxaa noo suurto gashay in ardaydeena ay kaalmaha hore ay ka galaan oo 10 arday ugu horeyso inay aad ugu muuqdaan waxaana sababtaas iska leh Sam Quiz. tani waa fikrad ka soo maaxatay dhalinyaro u midowday hal abuurkan wuxuuna ujeedkoodu yahay horumarinta waxbarashada sida uu sharaxayo gudoomiyaha dhalinyarada hal abuurtay barnaamijkan injineer Cabdifataax Abuukar. waxaan nahay arday Soomaaliyeed oo waddanka wax ku bartay oo isu yimid in ay saacidaan ardayda Soomaaliyeed oo iskuulada ilaa jaamacadaha. fikirkan waxaan ugu talagalnay inuu noqdo fikir ballaaran oo Soomaaliya idil arday walba Soomaaliyeed uu saameyn ku yeesho. sidaa darteed waxaan ku bilownay 2 fasal oo iskuul gaar ahaan kuwa oo shahaadiga ah 8 iyo form 4-ka ah. waxaan ku faani karnaa oo maanta oo waxa sharaf inoo ah in application-kan oo ay isticmaaleen
ardada imtixaanka kaalmaha hore galay ama yani ama ardada oo top 10ka ah horta ujeedkana lacag ma ahan ujeedkana wuxuu yahay jiilka Soomaaliyeed oo hadda soo koraya in arintan oo ay u noqoto laba arin mid koowaad horta in arday wadanka wax ku baratay oo in fikir noocan oo kala ah oo iyo fikir xitaa ka sii qurux badan oo ay la iman karaan iyo in aqoonteena iyo fikirkeena iyo maskaxdeen in ardayda Soomaaliyeed oo aan ku kaalmeeno oo aan ku saacidno. Maxamed Ibrahim Bulbul, Universal TV, Muqdisho. haatana magaalada Hargeysa. guddiga qaran ee dib u dhiska iyo taakulaynta suuqa Waaheen ee dhawaan dabka uu ka kacay ayaa maanta kulan la yeeshay milkiilayaasha dhismayaasha dadweyne ee suuqa waxaana ay si rasmi ah ugu soo bandhigeen naqshadda qaabka guryahoodu u dhisi doonaan. waryaheena magaalada Hargeysa Cumar Saadiq ayaa warkaa inoo soo diray. guddida heer qaran ee dib u dhiska iyo taakulaynta suuqa Waaheen ayaa maanta kulan la qaatay mulkiilayaasha dhismayaasha dadweynaha ee suuqa waxaanay si rasmi ah ugu wareejiyeen shaqada qaabka guryahooda u dhismi doonaan. kulankoy goobjoog ahayeen guddiyada kale ka shaqeeya howlaha qaadan ururinta iyo dib u dhiska suuqa Waaheen ayaa waxaa daahfuray wasiirka diinta iyo qaafta Sheekh Cabdirasaaq Albani waxaana uu mulkiilayaasha u sharaxay qorshahooda suuqa isagoo cadeeyay ganacsatada doonaysa inay wax dhistaan ay u madax bannaan tahay dhismaha guryahooda iyo naqshada raacaya. guddida markii aanu isla sabtidiiba u yeedhnay waxaanu u sheegnay inaanu saacaddaa wixii laga bilaabo ka guddi ahaan iyo ka xukuumad ahaan aanu diyaar nahay in aanu suuqii dhismihiisii ooda ka qaadno oo qof kasta oo doonayo inuu wax dhisto oo soo diyaar garoobay wixii aan ugu talagalnay hadday naqshad tahay iyo hadday faraqabsi tahay iyo caawimo ay tahay hadday tahay inaanu ku wareejin doono. waxaa ogtihiin suuqu inuu yahay intan gubatay ee brivatka ah ee dadku gaar u leeyahay waa ilaa 320 sekadood waa 211 guri meelahaas. intaa markay tahay waxaan ugu talagalnay sekad walba in aanu naqshadeedii hadda idiin dhiibno saaka sekad walba aanu siino naqshadii aanu naqshadiina waatan. barasaabka gobolka Maroodijeex iyo maayirka Hargeysa oo xubna ka ah guddida dhismaha Waaheen ayaa iyaguna mulkiilayaasha u sharaxay muhiimadda naqshada cusub iyo kaalinta xukuumaddu ka qaadanayso sidii loo hirgelin lahaa dhismo casri ah oo lagu badbaadin karo haddii khatar timaado. floorka koobaad oo sabada ayaa shardi ah laakiin naqshadani waxay inoo sii qorshaysay markaynu doonayno kor inaynu u soconno sidaynu u soconayno inaanu qofba markuu siduu doonay isaga dhaqaaqayn saanu suuqi mar dambe dhibaato ugu iman laakiin marka hore guri walba waynu dhisanaynaa jingadi baynu ka daynaynaa sabad baynu ka wada dhigaynaa. cid lagaga dhigayo compulsory oo la leeyahay intaasna waa inaad adigu dhisataa oon maanta lagu qasbayaa ma jirto. salaamada imika dabaqya laga dhisayaa bacadlaha muhiimku waa salaamada waa in qofka maxaa dabaqa saddexaad jooga uu og yahay hadduu dabdhaco halku ka baxi lahaa iyo halkoo nabadgelyada badan. haddaynu idhaahno dukaankii baa iga yaraanaya oo salaankii baa in yar iga cunaya dee ogow hadda khatar ku jirtaa laga yeeli maayna. salaanku wuxuu leeyahay qiyaas buu leeyahay qiyaastii hal taako lagama bixi karo. Caaqil Maxamed Shukri oo ka mid ah ganacsatada waaweyn ayaa soo dhaweeyay shaqada ay guddidu qabatay waxaanay mulkiilayaasha ugu baaqeen inay raacaan shaqada maanta loo qaybiyey. adigu walaal wixii aad qoonsato hadday injineer ku xidhan tahay iyo hadday guddi ku xidhan tahayba diyaar baanu kulnay inuu gurigaagii ku ahaado dusha markaad heshaa haleesha ee ilaahay wax kuu siiyana aad saarato qaabkaa fiicana suuqaana uu noqdo. annagu runtii ganacsatadii haddaanu nahay guddidii ganacsatada waanu ku qanacnay. muxuu ahaa idinna waxaan idiin soo jeedinaynaa war waxaa hadday dhib xataa leedahay anigoon arkahayn lillah ma arko hadday xataa dhib leedahay faa'iidaday leedahay baa ka badan. qaar ka mid ah ganacsatada mulkiilayaasha oo halkaasi ka hadlay ayaa muujiyey sida ay ugu qanacsan yihiin tallaabooyinka guddidu ku tallaabsatay. si qurux badan baa wax loogu faahfaahiyey
waxaanu codsanaynaa in la siiyo dalu ganacsatadii nahay tildiyada la soo sameeyey naqshadihii si guruub waliba uga soo baraandego oo isku soo qanciyo dabeedna uu soo celiyo isagoo shirkaddiina la soo heshiiyey ciddii ku qanacda ciddii su-aal ka qabtaana ay ku soo noqoto shidheerada amran ahaan waxaan ahay dadka ku qanacsan inaynu saas u samayno suuqa lagu soo tabcay ee quruxda badan ee nabadgelyadiisu badan tahay anigoo ka wakiilo hooyadii cibaade maxamed nuur dadkii ma garanayaan marka anigu waan ku qanacsanahay waxaan dadkana ka codsanayaa in wax wanaagsan baa laynoo soo sameeyey waana laynala wadayaaye wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha iyo wasiir ku-xigeenka ganacsiga cabdiqaadir iimaan iyo muuse saleef oo kulanka soo xidhay ayaa sheegay in guddidu guul ka gaadhay howlihii cusle ee loo xil saaray mulkiilayaashana looga baahan yahay in dhismayaashooda bilaabaan dhulka idinkaa iska leh guryaha idinkaa iska leh dowladdu mas-uuliyad keliya baa saaran mas-uuliyaddaana way gudanaysaa shantaa biloodba shantayada injineeree la soo xulay waanu shaqaynaynay har iyo habeen mutadawicni baanu ku shaqaynaynay waxaanu u taagnayn inaannu dalkayaga aanu wax gashanno marka waxaannu idin faraynaa sidaa laydinku soo shaqeeyey inaad u qaadataan cumar saadiq telefishinka universal hargeysa maamulka jaamacadda caafimaadka al-xayaad ayaa kulan sagootina u sameeyey arday kuliyadda daaweynta iyo qaliinka bachelor of medicine and bachelor of surgery maanta ugu ambabaxaya dalka Uganda si halkaasi ay ugu soo qaataan sanad tababara oo internship programa wariyaheena sida cabdi tahliil ayaa warbixinta warkaasi noo diyaariyay maamulka sare ee jaamacadda caafimaadka al-xayaad medical university ayaa gudaha xarunta ee magaalada muqdisho ku qabtay munaasabad kooban oo ay ku sagoontinayeen arday jaamacadda wax ka baranaysay 5 sano ee la soo dhaafay kuwaas oo sanad tababar practical caafimaad ku soo qaadan doona isbitaalada dalka Uganda dhaqaatiirtan oo 5 sano ee la soo dhaafay wax ka baranayay jaamacadda caafimaadka al-xayaad medical university ayaa dalka Uganda waxa ay ku soo qaadan doonaan takhaasuskooda caafimaad oo practical ayadoo jaamacadduna shaacisay in dafcadda midaan xigta baaritaal caafimaad loogu diri doono dalka Turkiga qaar ka mid ah ardada maanta u ambabaxay dalka Uganda iyo waalidiintooda ayaa uga mahadceliyay jaamacadda al-xayaad medical university tababarkan practicalka ee ay u dirtay dhaqaatiirta dalka Uganda waxaan u mahadcelinayaa maamulka macallimiinta ardaydii muddada dheer ay isku fasalka ahaayeen gabarta dhinacayga taagan ee walaashay Fardowsi Xuseen Gacal oo ay jaamacadda u suurtagelisay in ay ku soo qaataan tababarkii dhakhtarnimada dalka dibaddiisa gaar ahaan dalka Uganda aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa maamul iyo macallimiin waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala jaamacadda Xayaad oo ah magaceeda nolol in ay u soo kordhisay bulshada Soomaaliyeed dhaqaatiir إن شاء الله تعالى بدبادين دونتا نولشة إن بدن أو كم إذا دت كنا. تعرف وين أي تهاي إن غيب كنا نقدر مناسبات دان كوبان أنا جو عبد الشكور عبد الولي أحمد أهنا زمزم عبد الولي أحمد ولا الكيد كان وكيله أبو عبد الولي أحمد وهلي يهوي باهي على الجمعة عليه إحنا هذا وفرح سنة هاي حقيقة أنا دران جار إسينا يسه إن مناسبات دان جوجو أن كسبوتينا ولا شيء توريس زمزم oo soo dhamaystay 5 sano oo barashada cilmiga caafimaadka ah haddana u baxaysa safar sanadkii ugu dambeeyay oo internshipka ah dalka Uganda oo ay u soo diyaariyeen jaamacadda Xayaad Medical University waxaan rajaynayaa insha Allah tacaala walaashay waqtigii ay soo bixisay iyo juhdiga ay soo bixisay inay ka dhabayso fursadan ay jaamacaddu siisan ay ka faa'iideysto si wanaagsan ay uga faa'iideysto waxaan mahadcelinayaa jaamacadda sharafta leh al-xayaad medical university waalidiintii garabkii u soo siiyay iyo macallimiintayda 5 sano soo baranayay hadda mar labaad waxaan uga mahadcelinayaa jaamacaddeeda fursad labaad ay siisay internship wadanka Uganda ah oo badanaa ay sahelin fursadaan kale ardada asaageeya mar labaad iyo mar saddexaad baa maasantahay jaamacaddeeda iyo waalidiintayda magacaygu waxaa la yidhaha Cabdullaahi Cali Maxamed jaamacadda dhigta jaamacadda al-xayaad medical university
waxaa ii soo gabagaboobay 5 sano oo basic and clinical waxaa hadda bilaabaya hadduu alla idmo sanadka u dambeeyay oo medical internship waxaan rajaynayaa inuu ilaahay igu soo gabagabeeyo guul insha Allah sidoo kale waxaan u mahad celinayaa waalidkayga walaalahayga inta igala qayb qaatay waxbarashada ii suurtageliyay sidoo kale waxaan u mahad celinayaa Allah subxaanahu wa tacaala oo ii suurtageliyay waxaa sidoo kale u mahad celinayaa jaamacadda Al-Hayaat maamulkeeda iyo macallimiinta dhammaan oo mahad celinaya Dr. Jalaani Cabdullaahi Maxamed gudoomiyaha jaamacadda Al-Hayaat Medical University ayaa kula dardaarmay dhaqaatiirta inay ka faa'iideystaan fursadan muhiimka ee jaamacaddu ay siisay jaamacadda Al-Hayaat Medical University inaan ku guuleysano inaan arday inaan u dirno dalka Uganda isbitaalada ku yaal xiriirkaas oo muddo laga soo shaqeynaya ayaa maanta suurta galay in aan ku guuleysano inaan ardadaas ay maanta baxaan ee muddo hal sana ay practical ku soo sameeyaan isbitaalada ku yaalo Uganda xiriirkaas waa xiriir ay jaamacadda muddo ka shaqeynaysay oo hadda kadibna joogto noqon doono oo ardada soo socoto ardooyinka kalena ay nasiib u yeelan doonaan warkayga muhiimadiisu waxaa waaye dardaaran la dardaamayo ardada juhdi badan idin soo geliyay waalidka idin soo geliyay idinkana dadaal badan aa muujisaan waana ku guulaysateen dhamaystirka dadaalka ku jirtaan oo hal sano oo practical ah ayaa meeshaas ku soo qaadanaysaan saa daraaddeed marka in aad noqotaan rabnaa ardadaas kale ee meesha ayagana waddankooda gudihiisa practical ku qaadana inaad la mid noqotaan wax badanaan ka aqaanaa dhaqaatiirta Uganda dhaqaatiir aad u diyaarsan waaye isbitaaladoodan isbitaallo oo waxa waaye runtii aad u horumarsan oo aad ka faa'iideysan kartaan oo aad arki kartaan badanaa cudurrada badan dadkana ma aha dad oo runtii aan dadka soo dhoweyn maaha dad aad u fiican oo furfuran waaye Soomaali badanna meesha waa ku nooshahay wayna yaqaanaan marka inaad aad runtii aad la qabsantaan oo dabeecaddooda aad runtii aad barataan si aad uga faa'iideysataan ayaga iyo ardada meesha wax ku baranaysa iyo dhaqaatiirtaba iyo maamulka isbitaaladaas Sada Cabdi Taaliil Universal TV Muqdisho mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa kulan soo dhaweyn iyo taageero waxay magaalada Muqdisho ugu sameeyeen wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa magaalada Muqdisho ku qabtay kulan taageero iyo soo dhaweyn ay ugu muujinayeen wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdisalaan Shariif Xuseen ugu horeyn odayaasha salaadiinta dhalinyarada iyo haweenka ka qayb galay kulanka taageerada iyo soo dhaweynta wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga Cabdisalaan Shariif Xuseen ayaa goobta ka hadlay waxa isku yimid meeshan Ashraaf Banaadiri andho Ashraaf guud ahaan andho maxaa yeelay maanta Ashraaf horta dowladda federaalka waxaan ugu mahad celinaynaa oo hogaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud macnaha sida fiican ay Ashraaf ay u siiyeen basashanada dowlaha ganacsiga oo ah Ashraaf Banaadiri labada dhinacba ay dowladda waxaan ugu mahad celinaynaa horta tani xigmadan ka ah yani kaas xigmad oo yaab lahan ka ah wuxuu dhigi jiray odayaal war meeshaan aad ku jirtaan inaad ka soo baxdaan war ordoo number 4 tago ummadda dhexgala war Ashraaf meel baad isku oday saasuu dhigi jiray xigmad ay hadlayaa marka fiirisid odayaashaan dhaqanka oo Banaadiriga Shingaani Axmed Weyn loo jooga ma baka warqabiya ba adduunyo dhanba iyo wixii jira iyo siyaasad ahaan ma ka warqab oday marka dhigi jiray walaal ka soo bax meesha oo dadka dhexgala kulankan aad ugu faraxsanahay mudan wasiir anagoo gacmo furan iyo qalbi furan ku soo dhawow insha Allah intaan iyo in ka badan iyo horumar intaan ka sii fiican waa rajeynayna dadka lagu dayi doono Soomaaliya aan noqonane waa rajeyn doonaa insha Allah Imaam Shariif Faadil imaamka guud ee beesha kulanka soo dhaweynta iyo taageerada magaalada Muqdisho ugu qabatay wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdisalaan Shariif Xuseen ayaa imaamka beesha waxa uu sheegay in dowladda federaalka ugu mahad celinayo sida labada xubnood ee ka mid ah golaha wasiirada ay beesha ugu dareen xubnahaasi haddaan nahay ahlul beedka Soomaaliya ashraafta maanta waxay aad iyo aad ugu faraxsan yihiin dowlado badan Soomaaliya ay soo mareen la arkay laakiin xuquuqdooda lama siin ahlul beedka
laakiin maanta aad baan u faraxsannahay waxaan helnay wasiirka awqaafta ku-xigeen ana laga dhigay alxamdulilah wasiiru dowlaha ana laga dhigay shariif cabdisalaam shariif xuseen alxamdulilah jale madaxweyne taas aad baan kaaga mahad celinay ra-iisul wasaare xamsa taas aad baan idinka mahad celinay labadiina anagana insha allah waa idin garab taagannahay duco heel iyo hoo kul waa idin garab taagannahay ugu dambeyn wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Cabdisalaan Shariif Xuseen ayaa ugu mahad celiyay beesha kulanka taageerada iyo soo dhaweynta magaalada Muqdisho ugu qabatay runtii aad baan ugu faraxsanahay aniga hadda wax badan oo aan gobashaan ka iraahdo ma jirto nuxurkii waxaa dhameeyay odayaasha laakiin macnihii annaga hadda waxaan ka tirsannahay dowlad uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud oday u yahay wuxuu saldhig ama halqabsi uga dhigay Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la aragtidaas mid la mida waxaa ku hogaaminaya xukuumadda uu ra-iisul wasaare xamse cabdi barre uu hogaaminayo oon anigu qayb ka ahay iyo barnaamijkeeda oo dhan lagu sameeyey oo ah xukuumaddaas dan qaran uu dhisay iyaduna waxay ku salaysan tahay barnaamijka ah Soomaali heshiisa dunidana heshiis la runtii waxyaabo badan ayaa laga shanqariyey heshiisku wuxuu ku yimaadaa midka ugu fiican oo aragtida madaxweynaha ku salaysan waxaa weeye bottom up macnihii beelaha Soomaaliyeed ka mida oo xurmo iyo tixgelin iyo qadarin bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda kule way asharaaf turnaanti annaga waxaana laga rabaa horta in si qalbi fiican oo niyad wanaaga aan u heshiino kaliya intaas ku ekaana ma ahina inaan Soomaaliya oo dhan oo dhaqankii runtii ay ashraaftu lahaan jirtay ah in lagu shaqeeyo oo Soomaalina la heshiisiyo Cabdicaziz okay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka degmada Ceel Berde ee gobolka Bakool ayaa beeniyay hadalkii uu xildhibaan Axmed Mashruuc oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo ka jeediyay golaha shacabka dhawaan Maxamed Cali Weliye ayaa warkaasi inoo diyaariyay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo nabadoonnada degmada Ceel Berde ee gobolka Bakool oo uu hogaaminayo ugaas Xuseen ugaas Cabdi ayaa waxa ay ka hadleen hadal dhawaan uu golaha shacabka uu ka hor sheegay xildhibaan Axmed Mashruuc in uu kulan Ceel Berde kula qaatay odayaasha iyo waxgaradka balse odayaasha ayaa sheegay in aysan waxba ka jirin hadalka xildhibaan Axmed Mashruuc ee ah in uu la kulmay waxgaradka degmadaasi sidoo kale odayaasha oo hadlay ayaa carabka ku adkeeyey in aysan marnaba jirin cid u timid oo kala hadashay wixii ka dhacay degmada Ceel Berde iyo deegaanada Aato iyo Yeed ugaas Xuseen ugaas Cabdi ugaas Xuseen iyo qaar ka mida waxgaradkii kale ayaa halkaasi ka hadlay halkan dhib baa ka dhacay dhibka darteed mas'uuliyiin baa yimid deegaanka wixii ka jiray waa la ogaa nin deegaanka matalay oo loo ogolaa ma ahayn bulshadan dad uu magaraysa hagardaamay dhibaatooyin badan ku sameeyay bay ahaayeen wuxuu ku imaaday sharaftii iyo karaamadii waftigii uu hogaaminayay wasiiradii iyo magaraysa ay hogaaminayeen jananka ciidanka Soomaaliya General Odawa sharaftoodu ku imaaday oo lagu cizeeyay iyo dhib ka dhacay darteed marka maanta inuu sheegto in magaraysa deegaanka uu ka soo shaqeeyay bil soo joogay ma aragtay asagii uu matalaad ku leeyahay taas waxaan ku beeninaynaa in ay maartay anagoo odayaasha dhaqanka waxgaradka inay waxba ka jirin baarlamaanka wuxuu ka hor sheegay inuu ugaaska la soo shiray inuu guurti la soo shiray inuu waxgarad soo arkay in deegaanka uu magaranaysaa ka soo shaqeeyay no ma dhacayso waxaan jirin haddii la sheegtana dee wixii jira ee dhabta aan baa ka dambeynaya waxaan ka dambaysiinaa aan ku beeninayna ninka la yidhaahdo Mashruuc beenta uu magaranaysaa baarlamaanka ka hor sheegtay fursad uu maanta helay ee cadawga wadanka soo galay ee mas'uuliyiinta sharafta leh uu ku soo gabaday wax ka jiro Ilaahay abuurtay ma jirto been way wuxuu sheegayo waxa uu sheegay ee uu leeyahay ugaas baan la kulmayna dad uu magaranaysaa luqyada waa la garanayaa beesha magaranaysaa meesha degan dadka Ceel Berde leh dadka magaranaysaa matalo aniga asaga ma ana shirin odayaasheedii waxgaradka ismeen arkin waxaan ka hadlaynaa
arrin been sheegida oo maanta ka aan kow ahayn oo ninka la yidhaahdo mashruuc oo ceelberde ka sheegay. ceelberde waa soo jireen, waa la yaqaanaa, waa degmo jirto Soomaaliya ka mid ah. cidda ugaaska ah iyo cidda oday dhaqameed waa iyo cidda guurtukaana waa la yaqaanaa. intuu dad gidaar fadhiisiiyo inuu yidhaahdo ugaaskii beeshaan la soo shiray aad baan oga xunnaa. wuxuu uu ka sheegtay mashruuc degmada ceelberde inay ahayn wax ka jira uun jirin, odayaal la shirin, ugaas uu la shirin, wuxuu guri la galayna wax asaga jeebkiisa ay tahay inuusan la shirin oday nabadoonnada ceelberde ama ugaaska degmada ceelberde oo hal mid ah. degmada ugaaskeedii lamuusan shirin, mashruuc odayaasha dhaqanka ee soo jireenkaana lamuusan shirin, manaba matala ceelberde. degmada ceelberde mashruuc ma matalaba. waxaa weeye mashruuc kursiga uu ku fadhiyo waxaa laga leeyahay degmada ceelberde. degmada ceelberdena isagu ma laha, dadkii lahaana waa la yaqaanaa. wuxuu sheegay inuu yidhi waxaan la shiray odayaasha dhaqanka. odayaasha dhaqanka iyo ugaaskii beesha iyo kulli waa la soo shiray buu yidhi. sida uu shalay been oga sheegay kursiga hadda uu ku fadhiyo boobka uu ku haysto unba haddana been u sheegay. aadan madoobe reer bakool baan nahay, isku gobol baan nahay, wuu yaqaanaa ceelberde cidda iskale iyo cidda looga dambaynaya labadaba. maxamed cali weheliye, Universal TV, magaalada Muqdisho. madaxweyne ku-xigeenka Somaliland oo ku sugan magaalada Boorama ayaa kormeeray taliska booliiska qaybta gobolka Awdal. wariyaheenna magaalada Boorama Buux Cabdicasiis Cali ayaa warkaas soo diray. madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici oo muddooyinkii ugu dambeysay ku sugnaa magaalada Boorama ayaa maanta soo indheendheeyey xarunta taliska qaybta gobolka Awdal oo dayactir lagu sameeyey. meeshan markii iigu horeysay in taliye ka noqdo maahe waa markii saddexaad in taliye qayb halkan anigu ka noqdo. saddexdaa jeer ku soo noqdana waa markii gobolka ugu fiicnaa, ugu xasilooni badnaa, ugu nabadgelyo badnaa. waxaa kaaga markhaatiga barnaamijkii gobolada ka dhacay, gobolka sida looga qaabeeyey barnaamijna u suura galay, nabadgelyana u suura gashay, waxba ka dhicin. dhagax tuur ayaa xasabeeyay ka dhicin, ayaa nabadgelyo heerka ay joogto. taasaa madaxweyne kaaga markhaatiga. guud ahaan gobolka nabadgelyadiisu waa 100%. gobolka maanta waxaa jooga nasiib wanaag, maamul aad u wanaagsan, wada shaqaynaya sidii markii hore aan ku aqaanay. yar xogo yar khilaafeer iyo qarjacayar baa jiraysiisay. guud ahaan saraakiisha ciidamada kala duwan, maamulka gobolka, maamulka degmada iyo booliisku waa markay iskugu ficnaan ugu wanaagsanaan intaan anigu kulliba arkay. intaa kadib haddaan yara taabto booliiska runtii qofna keligii wax ma qaban karayo. haddaanan gacantan bidixdu shaqaynayn midigtu keligeed waxma xataa dharka xidhan kari maysa. ciidan booliis oo fiican iyo saraakiil aad u fiican oo mas-uuliyiin oo shaqaynaysa ayaa gobolka joogta. saldhigyada iyo laamaha iyo saldhigyada dibaddaba in wax la bedelo oo wax badan la qabto inaan garto oo fikirka keeno waa halkeeda. laakiin keligii maan qabanay. saraakiisha meesha fadhiya kuwa kala maqan baa hawsha ayaa inta badan qabtay. waxaa noo suura galay xafiiskana fadhiyo inaan dhisno waa kow. xafiiskii hore ee qaybta inaan ribeerin garayno oo aan xoogeyntii qaybta ka dhigna. 2 xafiiska RSBRC qolada communicationka inaan samayno. 3 xafiisyada qaybta iyo laamaha gebgalo inaan ribeerin garayno. waa 4 musqulaha oo maxaabiistu ay gasho oo ay hadday doonto ku maydhato oo xamaamkii iyo baadkii iyo biyihii baambariha ku leeyeen. waan suura gelinay marmarka badan xiraan digay waan suura gelinay. isla weygana waxa noo qorsheyn haddii ilaahay yiraahdo oo noo suura geliyo oo sugayaa inaynu soo gaadho guud ahaanba marmarkii xirada in lagu dhamaystiro. runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan soo galo maanta xaruntii isugu jirtay qaybta booliska gobolka Awdal iyo saldhiggii koowaad ee Boorama oo weli maanta hal meel isku ah. insha Allah se la gaari doono in la kala saaro qaybtuna meel gaar ah u baxdo
halkana saldhigga ku hadho saldhiggeeda koowaad ee degmada ku hadho insha allah waxaan isku faraxsanahay in isbeddel weyn ka muuqdo oo aada u qurux badan oo dee saldhigya waxaa lagu yaqaano saldhigyada cawlanoo markaa saldhig gasho indhaha wax qurux badan ma arki jiro laakiin waxaa maanta muuqata meel sidii maaragtay adeegyada lagu bixinay ama hodheer haato ama maaragtay xarun dowladeed haato weyn oo wasaarada haatee meel wasaarada u eg aada u qurux badan ayaa ay muuqato runtii waa ilaahay mahadii intii somaliland ay jirta bay saldhigani inuu deer yeesho rasmi ah ayaa ugu horreysay waqtigii 1996 ee deerkiisa la dhiso horreeyay intaa intii ka dambeysana dib u dhiskii dalka ee wuxuuba kasoo kordhayay maanta waxaa muuqata dee in isku tashi badan ballaaran oo runtii qaybtii booliska iyo dowladdii hoose oo runtii muddaasana ka joogtay iska kaashaday iyo shacabkiiba ay wax weyn ka bedeleen baa meesha muuqata maalintii dalkaasi burburay boorama wixii ingiriis laga tegay wax dowlad ku dartay oo waxa yaraa dhakhtarka boorama wixii ku biira waan garayna saldhigga iminkaan sheegay aan ka hadlay iminkaan dhex fadhiyo wixii ku biira waan garayna waxaa la leeyahay waxaan soddonkaa sane dowlad soomaaliyeed ka heshay ay ka heshay awdal ka heshay ma jirto marka dadkan isu ooyay waan la yaabaayo ee indhooga arki laayihiin soddonkaa sano isbeddelka yimid ee intii somaliland jirtay ee waddanka dhismee adeegyadii aasaasiga ee caafimaadkii waxbarashadii biyihii halkaa ilaa iyo baddii iska daba dhaadhaceen reer buur waxaa leeyahay waa sidaa iskaashi haddaynu samayno oon keena qurba joogga iyo keena waxhaysta iyo keena caqliga leh aqooyaanka haddaan tale isu geyno wax badanoo saas u muuqda ayaa la qaba buux cabdicasiis cali telefishinka caalamiga ee universal magaalada boorama dahabshiil group dahabshiil international bank samtel iyo dahabshiil real estate ayaa munaasabad ballaaran oo ay si wada jira usoo qabanqaabiyeen ku qabtay magaalada hargeysa waxaana munaasabadaasi loo qabtay qurbo joogta somalilan dib ugu laabatay waryaheena hargeysa cali qamaaciir ayaa warkaa inoo soo diray habeennimadii xalay magaalada hargeysa ee caasimada somalilan waxaa shirkadaha ku bohoobay dahabshiil group ay magaalada hargeysa munaasabad ballaaran ay ugu sameeyeen qurba joogta kala duwan ee dalka dib ugu soo laabtay munaasabadan ayaa shirkadaha dahabshiil group waxay qurba joogta ugu mahadnaqayeen sida ay wax uga qabtaan dalkooda iyo dadkoodaba islamarkaana ay macaamiisha ugu yihiin shirkadaha ku bohoobay dahabshiil group waxaa sidoo kale ay shirkaduhu habeennimadii xalay kusoo bandhigeen adeegyada ay ugu talagaleen qurba joogta ugu horeyn waxaa munaasabadaasi ka hadlay qurba joogtana u mahad celiyey maareeyaha guud ee shirkadaha dahabshiil group cabdirashiid maxamed siciid ducaale dahabshiil xafladda qurba joogga ee shirkadu ay samayso sida joogtada ah runtii ujeeddadaan ka leenahay waxaa weeyaan inaan u mahad celinno dhammaan dadka waddankoodii ku soo noqday ama fasaxa ku yimaadeen ama ha u soo guureen ama ha ka shaqeeyeenba waddankoodii ku soo noqday dhismihiisa horumarkiisa iyo noloshiisa kala duwanba ka qayb qaadanaya shirkad ahaan mar walba anaga doonahay dahabshiil group kala duwan ama bangiga ha noqoto ama somtel halka joogta ha noqoto ama qaybta weyn inta badan aad qurbaha ku taqaaniin ee ah lacagaha dibadda laga soo diraya ha noqoto waxaanu mar walba u aragnaa qurba joogku in ay horumarka ballaaran ee waddanka ay qayb weyn ka yihiin aanan uga mahad celinno si joogta ah ummaddan kalena ay mar walba xusuusnaato qurba jooggu horumarka uu leeyahay ma dhow nin dhalinyarada baan la kaftamayo waad waddankii qurbahii waad ka raagtee weli qurba joog baad tahay mise weli qurba joog baa lagu odhanaya waxay muujinaysaa sida uu taytaladu isu bedelayaan qurba joog waa qof dabad jooga laakiin xaqiiqdii dad badan imika waddanka markay kusoo noqdaan lama odhan karo waa qurba joog marka laakiin waxaa dee suurtagal qofku inuu baasaboorkii ama maaragtay dabaddii markuu doonaba uu dib ugu noqdo bangi ahaan ama shirkadda guud ahaan mar walba qurba joogga aqoontooda iyo tacliintooda in laga faa'iidaysto runtii aad baan rag iyo dumarba u dhiirigelinaa waxaan dhalinyarada la shaqaysa ka codsaday qof walba bal waddanku ka yimi in la xusi karo
dhankooda waxaa halkaasi ka hadlay xubno ku hadlayay afka qurbajoogta oo uu ka mid yahay weriye cabdisalaan hareeri iyo sidoo kale safiir ayaan cashuuro. horta in badan baynu maqli jirnay afarta beenijaal la isaga yimid alele caaway dhab tahay oo afarta beenijaal la isaga yimid miiskan aanan u fadhiyey qoladii maraykan ka timi iyo qoladii new zealand ka timi baa wada fadhida miisaanta kalena dee saaxiibkii cabdirashiid ayaa hore u sheegay ilaa Ukraine baa meesha maraysa. maxaan ugu soo hadal qabsanayaa labadaas shay waxay ina tusayaan kaalinta ay qurbajoogku kaga jiraan dalkeena iyo dibdhiska dalka iyo maxaa la yidhaha muhiimadda iyo qofku macnaha weyn uu samayn karo. dhankiisa isaguna waxaa halkaasi ka hadlay kuna soo bandhigay adeegyada shirkadda dahabshiil group gaar ahaan dahabshiil real estate iyo dahabshiil ban ay ka qabato ama ay ka wado guud ahaan dalka. Axmed value engineering engineer meehi kooxda injineeradu way fadhiyaan laakiin value engineering waxa weeye waxaan ka wadnaa meel waxba ahayn ama xaafad yar inaan ka dhisno ama xaafad weyn inaan ka dhisno aan qiimo u yeelo aan deegaanka sidaa ku hayo kelmadda meesha ka qoran waxa weeyaan laba siyaabood baa loo micnayn karaa mid waxa weeye building home together annagoo guri idin dhisan idinka iibinayno ta labaadna waxay noqon kartaa building home together soo noqon aan waddanka wada dhisana insha allah. waxaa isaguna halkaasi ka hadlay guddoomiyaha rugta ganacsiga ee Somaliland Jamaal Caydiid waxaana uu shirkadaha dahabshiil group uga mahadnaqay munaasabadan. waxaan kaloo jeclahay inaan ka mid noqdo dadka soo dhaweynaya qurbajooga oo dalkooda ku soo dhaweynaya oo aan ku hambalyeynayana mar labaad shirkadda dahabshiil adeegyada hufan ee ay ugu soo bandhigtay annagu qolqoljoogga walba meesha waa kula wadnayo kula dhuuqaynay qoladiina dibadda ka timi inaad ku soo hilowdaan si aan waddanka idinka iyo carruurtiinuba wax ugu yeelataan. gabagabadii waxaa goobtaasi soo xidhay maayir ku-xigeenka caasimadda Hargeysa Khadar Axmed. fursadaha iyo caqabadaha haysta qurbajoogta way badan yihiin isa fursadaha ayaan tilmaamayaa fursadahaynu haysanno waxaa ugu horeeya fursad aad dhaqaale ku samayn kartid haddaad tahay qurbajoog ganacsiyaad ka samayn kartaa magaalada caasimadda Hargeysa qof kastoo qurbajoogana si gaara waxaan nagu waajibaa inaan ugu fududeynno wax kastoo inooga baahdaan oo liisan hadday noqoto iyo hadday mulkiyad noqotoba labadaba si gaara ayaan ugu fududeyn doonaa haddii aan la idhaa waxaa jira fursadaha dhaqaale iyo siyaasadeed qurbajoogta inta ugu badan ayagaa ka qayb qaata dhaqaalaha dalka siyaasadana da inta ugu badan ee wasiireeyo xil la magacaabi jiray berigii hore iyo imikaba dee doorka ugu badan waxaa ku lahaa qurbajoog. Cali Qamacir, Universal TV, Hargeysa. galbeedka magaalada London ee dalka UK ayaa lagu qabtay kulan ciyaareed loogu magac daray war caruurta kaasi oo lagu talagalay isdhexgalka dhalinyarada qurbaha ku barbaartay. waryaheena magaalada London Cabdirashiid Rashka ayaa warkaa inoo soo diray. kulan ciyaareedkan lagu qabtay galbeedka magaalada London ayaa ujeedkiisu ahaa mid lagu dhiirigelinayay isdhexgalka dhalinta gaar ahaan kuwoodii ku barbaaray qurbaha. qabanqaabada iyo isku dabaridka kulankan ciyaareedka ayaa alaba waxaa lahaa inta badan isku soo dabarida sanad walibana qabta Liibaan Jangoan oo ah shaqsi inta badan lagu yaqaano fikirka ah war caruurta taasoo ujeedkeedu yahay sidii caruurta looga badbaadin lahaa wadooyinka qaldan oo mararka qaar ay qaadaan. qaybaha kala duwan oo halkaasi kasoo qayb galay ayaa dhammaantood sheegay in fikirka oo la yimid Liibaan oo loo baahan yahay in lagu taageero maadaama uu yahay fikir wanaagsan caruurtana lagu badbaadin karo haddii wadooyinka saxan la qaado. Good day out, summer. Just everyone gets to know each other, and the most important thing is to promote the word Aruta. I'm happy for the elders of the Somali community to get kids out here off the streets on football pitches. marka caruurta waa wax weyn, waa wax qiimo ku fadhiyo in caruurta la tixgeliyo oo la siiyo ayaka priority marka ugu horeyso. waalidiinta waxaan dhihi lahaa caruurtiina ku dadaala waxbarashadooda iyo ka warqabkooda sidaas darteed Liibaan Jangoan waxaan leenahay waa khayr Allah ku siiyo. waxaan lagu rajaweynahay dhammaanteen annagoo markasta Liibaan ku taageerno tartankan
tartamada caruurta loo qabto mustaqbalkana waxaan rajaynaynaa inuu tartamo badan noocan oo kale inuu noo qabto ilaa idinkiis caruurta waa wax weyn oo aad ummadda runtii meel walba adduunka ay ka joogaan ay u tahay astaan waxaas ka batay knife crimekaas ka batay maahan wax kastaa jiro ugu soo batay marka ciyaalka laga warqabo ciyaal badan waxaa jira xabsiyada ku jira waxaan ku encourage gareyn lahaa wali dhammaanteenba inaan ka warqabno ciyaalkaas maanta ayay ku soo beernaatay in la qabto tartankan ka yar ilmaha 16 14 iyo 12 loogu talagalay insha Allah sanad kastana waa la joogteenayaa carruurta sida uga fikirayo ayaa wax weyn ah horta liibaan intaasaan ku hambaleynayaa waxaan jecelahay inuu sanad kasta joogteeyo oo mataqaanaa si qurux badan anagana ula shaqeyno waxaan maanta noo qabsoomay carruurta oo noo wado liibaan jaankuan walaalkeena maanta waxay noogu socotaa si habsami ah liibaan ku dayasho uu mudan yahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan sida liibaan oo kala camad in loo xilqaamo liibaan waxaan kula tali lahay isagana on tala aan sii lahay inuu booqdo ma arkin oo xabsiyada caruur badan oo Soomaaliyeed ku jirto qaar ma arkin oo dambiyadooda iska yareeyeen iyo qaar dambiyo ay galeen xogaa yar iska waaweyn yahay hooyay aabba kasta waa jecel yihiin inay caruurtooda ma arkin oo ay wax taraan inay heer gaaraan barnaamijkan ma ahan qof in lagu dhibaato loogu geysto ama dhibaato maaragtay loogu suubiyo barnaamijkan uma suubinin annaga dad inaan ku ataagno waxaan u suubinnay in aan dadka aan ugu badbaadino caruurtaas aan maaragtay war caruurta oo maaragtay tabaaleysan barnaamijkan haddee dad kastay maqlaayaan waxaan leeyahay oo dunida dacdiisa ay joogaan qof kaale ma leh caruurta ha laga warqabo intaasaa muhiimadda ah caruurta aan ka warqabno annaga dadaalaynaa haddaan nahay Somali Week iyo haddaan nahay Wembley haddaan nahay maxaa lahaa waxaan la hadlayaa UK Europe Africa Asia North America kulli barnaamijkan waa isla leenahay aan garab galno aan u istaagno yaanan qof aanan ku fiirsanin barnaamijkan waa barnaamij la wada leeyahay aan dadaalno badbaadinta caruurta way cabdirashiid maxamed nuur cabdirashki universal TV London markana akhbaraadka dibadda wasiirka arrimaha dibadda Belgium ayaa sheegtay in ay aad u kordhi doonaan qiimaha korontada ama tamarta waxayna sheegtay in ay yeelan doonto saameyn oo Yurub oo dhan arintaasi laga dareemi doono wariyeenna London Maxamed Axmed Xaaji Cagmadhige ayaa warkaa inoo soo diray wasiiradda qaabilsan dhinaca tamarta ee dalka Belgium ayaa digniin waxay u soo jeedinaysaa wadamada reer Yurub guud ahaanba taasi oo la xiriirta arrinka ku saabsan qiimaha tamarta iyo weliba korontada oo aad iyo aad sare ugu kacaya bilihii ugu dambeeyay taasoo ay sheegtay weliba inay arrintan aanay wanaagsanaan doonin 5 ilaa 10 sano ee soo socda xilliga qaboobaha marka la gaaro arrintan ayaa waxaa lala xiriirinayaa in tamarta gaaska iyo weliba waxyaabaha kale ee ka imanaya dalka Russia ay yaraadeen tan iyo intii faragelinta lagu sameeyay wadanka Ukraine cunaqabateentana lagu soo rogay dalka Russia taasi oo loola jeedo mar haddii ay Russia weerar gardarra ku qaaday dalka Ukraine in cunaqabateyn la saaro Russiana taa beddelkeeda ay xanibtay gaaskii dhinaceeda ka imanaya wadamo badan oo reer Yuruba wasiiradaasi oo lagu magacaabo Tina van der Straten ayaa waxa ay shaaca ka qaaday inay laga maarmaan tahay in si degdeg ah loo xakameeyo qiimaha tamarta sida weliba gaaska iyo weliba dhinaca korontada marka la fiiriyo si reer Yurub ay u helaan fursad ay markaasi wax walba ay ku maamulan karaan waxa arrinkani uu yahay arrin lala xiriirinayo iyadoo sanadkii tagay oo kaliya 40% gaaska Yurub ay heshay uu ka imanayay wadanka Russia laakiin taas iminka ay u muuqato inay meesha ka bixi doonto wadanka Jarmalka ayaa wasiirkooda dhaqaaluhu waxa uu sheegay in dalkiisu uu yahay dalka ugu badan ee gaaska uga iman jiray wadankaasi Russia laakiin iminka Jarmalku ay wadaan qorshayaal xoog leh oo gabagaba ah oo ay isku tashanayaan si ay markaa uga baaqsadaan waxyaabihii uga imanayay dhinaca Russia dowladda Jarmalku waxay sheegtay laga bilaabo bisha soo socota ee September 85 inay ku guuleysatay qaabka iyo siday u maareynayso una kaydinayso gaaskeeda xilliga qaboobaha si ay markaa u wajahdo iyadoo dhinaca kalena Jarmalka iyo reer Yurub ay sheegeen in la heli karo wadiiqooyin kale ama wadamo kale oo gaaska laga keensan karo si loo daboolo baahida gaas ee sanadlaha ah ee guud ahaan qaaradda Yurub dadka ka hadlay xaaladda waalida ah ee dhinaca qiimaha shidaalka iyo weliba gaaska waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha dalka Australia Karl Nehammer oo shaaca ka qaaday in ay laga maarmaan tahay waalida iminka socota ee dhinaca qiimaha la kala siisto shidaalka inay tahay in wax laga qabto
waxaa kaloo uu sheegay ra-iisul wasaaraha waddanka australia inaysan ahayn arrin quman in valadimir putin uu isagu u qiimaha u gooyo ama isaga uun wax laga sugo marka la fiiriyo reer yurubna loo baahan yahay buu yidhi inay iyagu isku tashadaan. haddaba marka la fiiriyo arrimahan ugu dambeeyey ee dhinaca tamarta iyo qababaha soo socda ayay hadal hayeen guud ahaanba reer yurub iyagoo u arkaya aqritaankii inay guul gaari karayaan. rushia waxay dhowr jeer ay xanibtay gaas ka imanayay oo soo maraya dhuumaha u dhexeeya iyada iyo reer yurub iyadoo qiil uga dhigaysay in dhuumahaasi dayactir lagu samaynayo, laakiin reer yurub dalal ka tirsan sida jarmalku ay sheegeen arrintaasi inaanay ahayn arrin dayactira oo ay tahay arrin la siyaasadaynayo oo lala xiriirinayo cunaqabataynta lagu soo rogay jawaabteeda mar haddii ay rushia 24 februari 2022 weerar gardarra ay ku qaada dalka ukraine oo iminka maraya bishii 7. haddaba waxaa la eegayaa reer yurub qaabkay u tababushaystaan, qiimaha siday u xakameeyaan xagga shidaalka iyo weliba korontada, iyo weliba siday u wajahaan sanooyinka soo socda iyo qaboobaha aadka u ba'an oo ay saadaalinayaan. aad buu mahadsan yahay cagma dhige oo warbixinta arrimaha dibadda london inooga soo diyaariyey ayuu kaasi ahaa. guudaan intaasi ayaan ku joojinayaa wararka caalamka ee telefishinka universal. tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.